بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. ilaa subxaanahu watacaala mahadley alayna soo waafajiyey darsigeeni tafsiirka ahaa oo ka bilaabanaya suurat tawba awalkeeda. suuratu tawba darsiga qur-aanka suuradiisa uu ka koobmaa 114 suuradooda waa suuradii sagaalaad. suurat alfaatixa marka laga soo tiriya suuradii sagaalaad bay noqonaysaa. suuradda waa suura madaniya, suuradihii kusoo degay nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu ku noolaa cahdigii madiina ama zamankii madiina ee noloshiisa xilliyadii u dambeysay ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan qur-aanka ugu dambeeyey oo soo degay ayay suuradda ka mid tahay. saa daraaddeed aayado badan oo ayado kusoo arooray ama axkaam kusoo aroortay qur-aanka intiisa kale lagama hadlin waxyaabihii u dambeeyey. ahar baa ka sugan umuna caaisha ay leedahay radia allaahu canha, waxalaale waxa aad ku arataan wax la jideeyo mashruuca suuraddan gudaheeda ku camalfala, maxaa yeelay wax kama dambeynin markii laga hadlayo waxyaabaha la jideeyey markii la dhahaa. saa daraaddeed marka suuradaha qur-aanka u dhaadheer bay kamid tahay. waa 129 aayadood. masaaxifta qaarkood ama kutubta qaarkood inay 130 ahaan baa laga yaabaa, waliba cadadka suuradaha oo sidaan soo marnay uu leeyahay tiro kala duwan oo mararka qaar laisku waafaqayo, marna ay ku kala yihiin 129 aayadood. waa hal juz-i ziyaaday noqonaysaa. gaar ahaan suuradda waxay ka mid tahay 6 suuradood qur-aanka ugu dhaadheer, walow aayada ahaan suurado ka badan aan soo marnay oo 130 ilaa 150 180 iyo dhowr aayadood aan soo marnay, laakiin 6 suurado qur-aanka hal juz-i ziyaado gaartay suuraddan baa ka mid ah. annaga waxaan dhihi jirnay markii looxa qur-aanka aan ku baran jirnay 6 labixiya, saasaa la dhihi jiray ninka qur-aanka soo barta. bimacnaa waa suuradaha cashir ahaan ardayga markuu bilaabo maalin laba walaa hal isbuuc toona uusan ku dhammaynin. suuradda waxaa kaloo dhihi jirnay bareen dhoolay, suurad aan bisin lahayn qur-aanka iyada keliya ka jirta. waxyaaba iskaga sheekaysan jirnay carabnimadii. suuraddan bisinkeedii suuratu annamal ayaa ka xoogtay ay ilmaan dhihi jireen laakiin waxaas wax jiro ma ah. maxaa yeele waxaan ka soo marnay innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim oo kaamil ah. wailaa bismi illaahi qur-aanka meelo kale ay kusoo aroortay, ama bismi kaligeed meelo badan bay kusoo aroortay. basmalada marka kaamil ah, suuraddaas waa suuradda laba bisinley loo yaqaano. suuradda aadaab ahaan markii la akhrinayo, haddii ay suuratu yunis kugu dhammaata, suuraddan aad doonaysa inaad akhriso qur-aanka khadmadiisa kor oodid, markii suuraddaad dhamaysa 2 shay aa kuu bannaan: baraa'atu min allaahi wa rasuulihi, qirada sida aayadaha baan waxba loo dhexgelinayn in laisku qabta oo 3 qaab looga dhawaaqayo. ereyga taa u dambeeyey wa huwa khayru lxaakimiina baraa'atu min allah, wa huwa khayru lxaakimiin baraa'atu min allaahi, oo maxaan ku yidhahdaa xoogaa sagta yargeliya iyo in waqfi kaamil ah oo baraa'atu min allaahi marka aayadda hore lagu istaaga. suuratu al-anfaalna sidoo kale markay dhammaatay in la isku qabta wallaahu bikulli shayin caliimun baraa'a caliim baraa'a caliim oo lagu istaaga baraa'atu min allaahi. waqfi wasli isagti yaa la kala yidhi carabiga xagga tajwiidka. alxasan suuradda maxaa bisin loogu qori waayey? 3 daliil ama 3 cilo ayaa la sheegaa. kow, labada suuradood maadaama suuradaha wixii ka horeeyay suuratu anfaal 5 suuradood isxigta
quraanka suuradaha ugu dhaadheer ay yihiin hal juz laba juz wax ku dhow suuratul baqara way ka badan tahay juz iyo laba juz ziyaado ah suuradaha kale juz iyo xisb iyo xooga ila غير ذلك maadaama ay suuradiisa u dheerihiin labadan suuradood dadkii katabatul wahyi ah oo diiwaan gelinay baa hal suurad ahaan u maleeyay cilada waa la sheegay waxa kale la sheegay labada suuradood xagga mawduuca suuratu al-anfal iyo suuratu baraa oo isku waafaqsan suuratu anfal waxa lagu bilowday dagaal nabi alayhi salatu wasalaam uu galay ilaa badr waxyaabihii muranka oo ka dhashay bayna saxaabada lagu daawayay khaasatan qaliimadiisa loo qiibinay ayaa la siinaya suuradan min awwaliha ila aakhiriha waxay ka hadli doontaa dagaalka gaalada iyo munaafiqiinta guud ahaan dabaday ka gashatan wahdatul mawdu' maadaama ay tahay sida daraadeed bay iyaga hal suurada ugu maleeyeen ma aha suuradihii dheera bay waxa weeye soo qorayeen tan suura waahida ay u ictibaariyeen daliil saddexaad in la yiraahdo nabiga alayhi salatu wasalaam isaga faray suuradaha in la qoro min suuratul faatiha laga soo bilaabo baqara la xajii ila naas isaga faray alayhi salatu wasalaam isagana jibriil baa quraanka ku soo dejiyay tacliim ahaan isaga u sheegay oo quraanka bari jiray waa soo marnay la tuharrik bihi lisanaka wala ta'jal bil qur'ani min qabli an naqdi ilayka wahyahu waxa soo dhawaa soo marnay sadaradeed bismillah jibriil kuma dhawaaqay nabigana kama soo guurinin maadaama nabiga jibriil uusan u waxyoonin isagana saxaabadu u sheegin sida awgeeda loogu tagay oo in la yiraahdo baraa'atu min Allah wa rasuulihi nask ay hoos galaysaa marka in la yiraahdo waxa macnaheeda uu ka bilaabanayo suurada qitaal iyo dagaal bay ka hadlaysaa naxariis in la jamciyo iyo qitaalkana suurtagalma suuratul maa'ida ku gaari doona meel loo daliishada oo nin reer baadiyo quraan akhrina baa nin reer baadiyo carab soo agfariis والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم ونكا انقسامه وعوده كسعيل والله غفور رحيم ننكر البادية وعوده هذا ليس من كلام الرب وحال شيء هذا الإله ما ننكو كحنا غي وعوده أذيقان حنكا يوعبا أنك لقرنين يوشر البادية معنى القرآن كي أغب سنة كم برر سنوح شيء muran baa ka dhacay waa liisu dhageystay ninka inay ka qaldantay baa soo baxday isagii baa ku baraarugay markaas uu dhahay wallahu aziizun hakiim wuu ku waafaqo wuxuu dhahay sax waa hada xakama fa'azza ilaahay uu kala saaray garsoornimadu wax kala saarayna wax ka dambeeyay raadraacadana kama baqa adoomadiisana wuxuu ku kala saaray awoodiisa wax ku meel mariyay laga daba iimaanay wallahu yahkumu لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فعال لما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار انت وحاول بمدى نبينا مشيئين عليه الصلاة والسلام صحابته هدو يسغفر لها ويغور لها جبريل إنه سنوشيء ويعادها يوحي نبي الله شيء قارسي لدعانا لنسخن وكتاب كان كما غن مجرتا أبدأ هذه السورة سورة معكم بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيدا آيال دي مركز بالله بسم الله ما يشكو مجر سادرات مركز سبعين محل جر أعوذ بالله من شر الكفير ومن غضب الجبار العزة لله وللرسوله وللمؤمنين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ساستأخرج حتى هنقلتها نرجع عصر تكون إن خيرتك ميدا مساجد قارك ميدا كنت سوي دي ورتفسيرك مرة بعد ما عاو حاجات مرة يسأل سورة داس أريقا سواح سوزي خير الله سيئ براءة بريئة هاشا أما هذه براءة أرنت وحاوي وبري نغشي ابن المريض براءة سو من الله يبوين حقيقاتي ورسوله رسول كيسا إلى الذين كوا حق هذا وحوي أهاتي أما لقبري نغدا عاهدتم على بدنتين من المشركين قال دا سورة محاسب النبي عليه الصلاة والسلام سندي أسوحجي وحجة الوداع لو يغانا سندي كهر يسيب أبو بكر حجك أبو دقي مسؤول مسلمين تإنو إساق أمير النغدا أمير الحج موسمك
إلى اليوم قف أيام مسؤولك أو أرماء إسلامك إيه ظروف تصابح هذا لو قدم بها نك اللي إرادة علينا وكسر درع وكيره علي ونك رع أبو بكر ومسؤول جود أهانت أنه حد أجارهن وحل سارن تمان أنت عرفة إن الله هذا شدة كما يشجعون سورة إلى أفرتنا أي وحبود وبال شيء وأخريه وكو أخريه ماشي جمعي هيت ودت كده أيتم نايم محيا لسنة سجالات أنت كوري شيء وتقرن كرتها سجال سنة أو حوي هجرة إيا السدح إيا 8 سنة أو حوي ما كل جو دوري لو عتنك سنة قالوا يسوع حجناي mararka qaar ayagoo qaawan oo cawradooda ay muuqato way dawaafi jireen kacbada sida macruufka ee sugan lagamana reebi jirin ayagoo mushrikiin bay dawaafi jireen xaj iyo umrana u imaan jireen abaraada markay la leeyahay hal la gaarsiiyo waa muqaataca iyo goyn sida ayadaha ay tartiibin doonaan waqtigeeda iyo xilliga loogu talagalay iyo waxyaabihii asbaabteeda ah fasiixu wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala socda naxariista ilaahay diinta inayna ahayn wax qalabsan oo dadkii oo dhan dhibay gaalada mushrikiinta ahayd ee nabiga shalay soo buurisay baa la leeyahay fasiixu waxa weeye dareera oo socda fil ardi dhulka gudihiisa ilaa mataa 4 ashhurin afar bilood waa bisha koobaad oo muharram ilaa bisha afraad laga gaaro muharram ama bisha xilliga la hadlaaya waa maalintii sagaalaad ee dilxijja bisha arafana waa bisha 12 sida macruufka cinda muslimiin الحاصل أفر بلاد حلقة كبلابة خطبة كذب أم بيان كاس أياد لذين محاعلة الله فصحي تذكر ويزرح دجنايم بل قاركود بايس دلو هل كودكودا ولا قاركود باحتى سيدنا سورة ومتحينا سومر رجع قاركود إسلام ودمر كودا قال أهين حبذا بايس دحداس مركا وحلا لو قبائل الأحمري أما دتك لو حاوية بيلاقي الدنوي الأحمري أما دتقار أهل الأحمري si qof walba xaqiisa iyo waxa weeye fursadiisii uu lahaa u helay afar bilood baa la sii wax ka dambeeya isbedelaysa hawsha alla wuxuu leeyahay waclamu ogaada annakum gaaladi hadii aatihiin inaatihiin ghayru mucjizillahi alla kuwa kaga daalinaya turaabta gudaheeda oo haddaad isu malaynaysaan waxa laydinka reebay kuwa awood ku banaysani kara aw malaynina alla subxaanahu wa tacaala markuu soo diray nabigiisa وحاول دين كان سودجي إن أذنك كعن أخي كرتان حونك إلهي لما وأن الله يبويننا مخزي الكافرين قال متكوجي أيوة هذيو ما لبن بابو سومرني إلهي سبحانه وتعالى إنوسن وهيلنين حاوه السكيسي هذا النبي الله موسى إن الله لا يصلح عمل المفسدين وكفرت أسلق إيارداش انتو براءة بل نغشتني وبريئهاش من الله يبوين حقي ورسوله كأتصوبنا إلى الذين كوا حق أو أهاتي عاهتهم لبلتين من المشركين قال هذا تتكويس لحد جناين ودنوا بذلك يلا وحلوا يرفسحوا صعد في الأرض لك قديس 4 أشهر أفر بلاد واعلموا هذا أنكم أذنك إن أتيهن غير معجز الله يعلقوا كغدالي غير كود وأن الله مخزي الكافرين قال متوجي أيها هذا يوم كما بحسن إنسان خزي عليه ودلّي وإذا هليل دون عمل كستأود تكتامب وأذان وأغيسين أما إعلام من الله يبوين حقيقاتي ورسولي رسولك سكاهاتي إلى الناس دد إذيلك ومن أنت ما أنت حاضر بيهين أو بكر بأوينا ومسؤول عامها أمكر مرقود علينا رضي الله عنه هو منك هوشان إنه بيانك جيدي لو تلقى يوم الحج حج كما انتي سوا هدنا لأغيسينا يا قديسا حج الأكبر وين قبلنا الحج الأكبر لو أقوال بالوشة وحاء وميمسن قولك اللي هي وما انت وحاوية طوبانات هذه الحجة يوم التاسع جزاك الله خير ما انت سقالان والله دحي ودتك غار باقبه أدلة ما يقدر يشهد لكن سيدا لحوق بديه إن لا يراد ما أنت طبنات وأنت أعماش حجك هو أوبا وأركان واجبات بحلقة سالة سمايا سادرات مركب وماني وين بدن هبين كذا وحلل ليلة جمع هبين كمزدلفة إلهي سبحانه وتعالى سورة البقرة قاردون وأحبذا مؤمنين تقوا أماني فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى آخر الآيات
أن الله يبوين سبحانه وتعالى بريء كيهي من المشركين قال هذا ورسوله الرسول كيسنا بريء كيهي فإن تبتم هذا توبة كينتان وقال ماذا أتك توبة كينتان فهو توبة كين داسا خير لكم إذن فعنا أبدا وإن توليتم هذا جيستان فاعلموا وقال أنكم أذنك غير معجز الله ألك وكقد لنا غير كودناتهن وألك ما كان إنسان عقاب كيسو بينسوها ليلا ياسك استوى وبشروا بشاري رسولك سوبنا والذين وحكفروا قالوا بعذاب النار وبشاري أليم حنوجسا marka kuwii hore ballamay hal buriye leeyahay ama meesha laga saara waxa laga soo reebayaa qoladan way ku xiran tahay dadka hore leeyahay marka baraa'adi illa alladina kuwa mooyaane kuwa ballankoodii waa loo ilaalin aatum alla badanteen min al-mushrikiina gaalada ah thumma lam yanqusukum an idin kan nuqsaamin ballamadi ay galeen shay'an wax laba walam yudahiru anan ukalmina alaykum kurgina aadan qof adinka idin ku soo duulay oo dagaal idin ku soo qaadayna hil hootona aan garab istaagin fa atimu oo dhameystira kuwa ilayhim xaqooda ahdahum balankoodi ila muddatihim kala kale way kaga duwan yihiin tilmaamaha labada maadaama laga helay waa loo ilaalinayaa muddada ay qabsadeen inta yahay in Allah yabawinana yuhibbu wa ja'ala al-muttaqiina kuwa is ilaaliyo wuxuu isu ilaalinayaan waxay isu ilaalinayaan alla taqwadiisa taqwadana meel badan baa ku soo marnay wax uu qofka sameeyo waxyaabaha ugu weyn oo maxabada ilaahay uu kasbaday inay ka mid tahay faidan salaha hadii ay baxaan al-ashhuru bilooyinka al-hurum hurmada badan suurada ayada ka hadlay doonta ashhurul hurum wa afar bilood subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wa salam thalathun mutawaliyatun وواحد فرد صدح مركه وحاوي يحريرا هل لم يلقوني أهل ذو كسوين هاي بشكوي تونات إيه بشلوي تونات إيه بشكوبات حاوي ذو القعدة ذو الحجة ومحرم صدح ذوي حريرا وفضل إله عاكم إذا سنة آخر في سنة أشهر الحرم بيكون ماني أول كذا أشهر الحرم وقبلها ونايا بشا أفراد حينغون والرجب مضارا التي بين جمادى وشعبان سيد النبي عليه الصلاة والسلام الله وحوله فاقتلوا لدغالم المشركين مركوا ما بعد هؤلاء براءداسي كواسي laga soo reebay asbaab gooni ahnina loo cudur daaray markii laga soo reebay waxa la leeyahay dagaalka ee baraadan waa inayna noqonin fil ashhur al hurum dagaal hadii la qaaday wa illa muqata'adi wa banaankeeda ay martay waana xugun ilaahay meel mari wax laga soo reebay سيادراد مركا فاقتلوا لدغالم المشركين قال حيث مال الله لمشى وجدتموهم كهشام وخذوهم قبتا وقفالت قبشده للشيغاي عند بلسي وخيارك لغا قاده وحلال وحجيب كيسا ما غعنتيس كجيرن لغا سو قاده واحصروهم قدوميه خيار اي لنا عوي ما لمشاس كهشام وحويه ارغغخ غليه وقعدوا فريست لهم ايها كل مرصد عمل كستا أما مال هود كستا كله أما مال كستا أو قل محاوية لابا أما مال كستا قد أو قل مرستك ومكانه كبشدك فإن تابوا هذا يتوبت كينان كو ولا إله إلا الله أي لي ماذا وتوحيدك وأقاموا صلاة أيها غاجيان أو إسلام مدي مركائي بالله ونعماش سدح وآتوا الزكاة أي بحيان فخلوا إسكدايا سبيلهم وددودي وحي لغوها أي ودباتدا قدومنتي دلقي غفلت الكاي كبابايا إن الله يبو إننا غفور وعلى ودافتان بددتك توبتك إن رحيم مؤمنين توامدون حريص بدن أو واحد قرن كرتا مركا صلاة دي أو لغتها زكاة دي أو لغتها سيدا آيات بدن أكو صبرنا الصوم كايا كمده إسلام مدي زغف باسي إنه ديعانتاي هدو قال أسأل أهانا وحاوي حرم ماله هدو وقف مركور مسلم أهانا كسهدي وحاوي أديد سيدا هذا صواب بدن يسوه قالوا يا مرتد بالله قال كأسلق أساك الدين هم سغانا كشر بدن حون أهانا وكأذقه هديو مركز للعاسي هو عندي دنين واجب لماذا أيتها صلاة أحكام تانا وقف ضيعا وإسلام مديسي أي وحاوي ضعيف تانا قال الله سبحانه وتعالى وآذان أغيسين أو من الله على حقيسة
كآتي ورسوله رسول كيسي إلى الناس تدليل كي لوغيسي يوم الحج حج كما ننتيسي على أكبر وين كبانك إن الله يبوين بريء وحبرك يا من المشركين قال ذا حق ذا ورسوله هنا وبرك يا هي لو ذا بريء كي هنا أو حياة حرير كلا قوس شذا أما دبلوماتيك لا يراده بني آدم إلى اليوم المتعارف وفق مركب ورب إنه كبحه هشيسك سفيرك أما وحيابها كونسلات عادية أو عادي بحاسم الحقات كاسولا بمركب بيان لا يسوي ساري خلاص أنت بدنا حرمة ولا ميل بدنا بقصة مرة وفق إرجاء أما كان سفيرك أما كان ملحق فدي حاول سفارة دكاه الشغي أنت دين أهاني دغن أهم إلا حرمة ومسألة متفقة سادردد أركيس أنت آيد إسكدب إيمانيس الله وحوله سبحانه وتعالى فإن تبتم قال لما هذا تكلابتان فهو خير لكم أذك إيدين فعنته وإن توليتم هذا جيزتان فاعلموا قال أنكم أذك إناتهن غير معجز الله ألك وكذا غيركم والله سبحانه وتعالى أودي سيسكم دفاعي كرتان وبشر رسولك الله وبشاري الذين كفروا قالوا بعذاب النار أليم حنوجسه إلى الذين كوا مويانه حكوا حر ما شندم وبشر الذين ما براء ذي هراء وحرايا كواسي براء ذي وحوي هراء لهم كوينايا إلا الذين كوا مويانه عاتم الله بدنتين من المشركين عذاب كان يكفكنا أملين وبراء ذي هراء كحر ثم لم ينقصوكم عن إذن كدمين بل ما يعرض كشان شيئا هو يراته ولم يظاهروا أن كالوين عليكم كركينا أحدا قفنا دقال كيني نعيب كينا وكالوين فأتموا إليهم كواونا ما يسترى عهدهم بلنكود إلى مدتهم لغار مددود أتكوه شيسين إن الله يبوين يحب حجة إلى المتقين كوا لك بغا فإذا انسلخ هدي أيضا ماذان أما أي بحانا الأشهر بلوين كالحرم حرمة لها فاقتلوا المشركين قال ذا الآية حيث وجدتموهم على المشهد وهشان وخذوهم قفاشا أو غغبتا واحشروهم قدومية أفر واقعدوا فريست لهم أي كل مرصد ما لو قبض كل جد أما عمل قالها نغوت أما قال يقف لقالها نغوت أما مال محاكر هذا بور لو قالها نغوت مرصد كوا مكانه قبشا فإن تابوا هذيك سو نغدان قال لماذا يتوبت كينان وتوحيدك وأقاموا الصلاة أي صلاة توسيا وآتوا الزكاة زكاة أي بحيان فخلوا سبيلهم ودذوذ أدايا ووحيات كل سميني سنة أخرت عقاب كدايا إن الله يبوين غفور رحيم وحيقتها الله مر الله لمركي توبت كينان كبعد وحي كهري توبدا ما الله رعنا يا وحي دذي لاين دنيا أي دعين dhibaatooyin kale keeneen jawaabtu waa may islaamnimada waxay ka horeeyay bay waxawaya baabi'inaysa walaalnimo loo nabdoobi halkaas wax ka dambeeyo walaalihiin way soo laaban doontaa ayada mar labaad wa in ahad min al-mushrikiin istajaraka hadii ay dhacdo meel badan qof gaal ayaa wuxuu damcay inuu muslimiinta la soo xaadiro duruustooda ama dad kale oo meel fog joogay baa muslimiinta wadankoodii soo aadeen diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhageystaan ay u fahmaan islaamnimada markaas hadii Ilaahay qalbigooda ku sharaxana waa khayr hadii kale waxa weeye waa loo ogolaanaya intay ka dhageysanayaan maxay nabiga mukatabaad baa ka sugan calayhi salaatu wasalaam kalimaad way ka sugan tahay xaal kufriim dad fara badan dhaxmaray isaga ayada marka waxay tilmaamaysaa qolooyinkaasi raaqibiinta ee soo jeestay oo diintan iyo dadkan wal wax ka maqleynaa leh inta ay gaalnimo ku sugan yihiin in la siiyo waqti ay wax ku dhageystaan wa in ahadun hadi uqaf wa in istajaraka dasalu soo xiraaya wa in istajaraka hadi uka aman galin dalba ahadun qof min al-mushrikiin gaalada asoo gaala oo la soo xiriiray dadkii ama qofkii u weynaa muslimiinta ama gobol ha noqoto ama wax ka sareeya waxaan u baahanahay inaan diintaas iyo waxa aad haystaan aan dhageysto islaamnimada ka soo bilow la dhimayo waa in la siiyo waxa uu dalbaday istijaarada bimaana naftiisa inuu qofkaas badbaado heli karo oo diimada muslimiinta inuu markaas amaan hela istijaarada waa meesha ay cabsida ka jirto wa in istijaaraka hadii uu ka magan galin dalba ahadun qof min al-mushrikiina kamida fa ajirhu waxa weeye badbaado oo waxa weeye soo dhaweey
حتى يسمع إلى كما كلام الله هذا الكيب كلمة ما لبض باقصة مرني كلام الله سورة الفتح وأبوه الرئيسي مركب وحوي وإرقال دينك إله ودم يكون سنة شامل ثم أبلغه قارسي مأمنه ما يشبه كوبة بادي لها هذو مركب إسلام ولا ليس مؤمنين أو مسلمين تكسبوا كميديها هدي ولكن لها كور وحي هايسين وأن مغليسي في عمان إذن لغيست لكن هذا قرآن مقالن كرهن بأن وقت لوي أما إن كسب فكره شان ثم أبلغوا قارسي ما أمانه هل كوكوبة بادي لها سأن قال لماذا ساس اللغة فإذا سنين dadkaas muslimiinta ee aanan garanayn ahdiga waxa ay ku joogeen marka ay waxa ay u dhibaan ama ay dilaan dalika kaasi بسبب أنهم عاشدوا أي وسنات قوم ضد قوم كاسوا لا يعلمون وحبان قرنين فركوا الله قرابي ما دام ويها قفا دين تبعك وغين قال في جاهل الوآية ساسوا على الله سبحانه وتعالى بحاسنة إسلام كانوا حاكم إذا قف إن الله شرحا معايا لهنا لغو خصب وإيمان دونت لا إكراه في الدين بحسن دلينت ماشي دقالك وكدع وقفك مركي لغو قبس والله بندقيا سورة التوبة وحبا بيك هذا دونت هوشان الله وحولي كيف سيدما يواهاتا وحوية مغنقلين أما كيف سيدما يتحقلين وواها كيف سيدما يكون وواهذا للمشركين كوى إله غير كي عابد عاهد بلا عند الله يبوين أكتيس وعند رسوله قلوين كنوع عاسا يا الله يا رسول كيسا أيقا وكفرتي سأل يا رسول كيسا وحوه تحقلنا يا مرلبات قال سعري إلا الذين هو ويانا عاهتهم أدلب بلنتين عند المسجد مساجد أكتيسا قال بنو بكر لي هذا بالا شيئا قال ذا سودة أخيارها قالنا أها deegaanahaan sida loo tilmaamay aan fogeyn kuwa ayaa la yiri marka ay laftooda waxba lagu xiray famastaqaamu inta ay toosan yihiin lakum adinka balamadina ilaalinayaan bani aadana idinku soo hiilinayeen korkiina fastaqiimu lahum adinka oo toosnaada oo tusaalahan anaga umalihin asal ahaan saad nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam oo suuradan socoto waxay tibaaxi doonaan waxyaabaha diblomaasiyada bani aadamka gaalada loola dhaqmo waxyaabaha ugu weyn baa looga hadlay in allaha yabaweyna yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina ayad hore wixii lagu gabagabay baatana lagu gabagabay kayfa sideemay u ahaataa wa in yadharuu hadday adkaadaan calaykum korkiina laa yarqubuu u dhimrin mahayaan fiikum adinka dhexdiina ama idin ilaalin mahayaan إلا هل كان مركز القرآن كسر أرتي وسورة جده هذا يعني ويسول لابد أن تقول لكن سورة كليه كسر أرتي إلا معاني الوقوف سر وحاكم الله أما إلا قرابة نما إذا كو إلى المايا ولا ذمة بلن هنا بلنكم بين يالله هنا أي لفتو ذي بين إيش الشجايا سورة الحشر بانكم سومر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فبين الشجايا سادراد الله وحوله سبحانه وتعالى يرضونكم حيث كرة لقلنا بأفواههم أفقاد بلنكم بين يالا وانا بين لويا وبين بديهم وتابا وحيث النعب ديديسا أذنك وناقين قلوبهم قلوب توضا وأكثر من توضا بان فاسقون وقوة دعا إله سبحانه وتعالى كبحيو فاجرين فسقك مركا وقال لنا سريحة وسومر إبليس بقى تلمام ففسق عن أمر ربه مركا فاسقين وقال محده نعيب يكدر سدين عرب وحي كشيغانا وبين قلب قوضة إيادين وحاكمنا بشيء من التفصيل وحيابها يسمينا يعني اشتروا وحي بإبسدين بآيات الله آياتك الله سبحانه ثمنا أدوين قليل يربيكو إبسدين ودينت إلهي جمال ملها فسدوا ويكأوذين غير كود عن سبيلها الله دديس إنهم أيها ساء وحاهم هذا ما وحكانوا أيها يعملون هو سمعيه ودينت إلهي أسألها نمو أركان القيمة لإنيتها وأركي سامانتا إنبضن وكمذا دليش أي تلمام أيام من أسباب التخلف بيكو تلمام قال لهم أنت سأقول فلان المها أي وحبرين ما أنت اللغات كستا أيكو وحاوية وحبرين قوميات هذه نغمد أيها بدل يديمه هذه من باب الأولى الله وحوله لا يرغبون إذن لا يرغبون إلى لما في مؤمن قف ألرمي
arrinkii ilan qaraabanimo walaa alla subxaanahu watacaala kama waxaa weeye kagama harayaan oo qofka mu'minka ama muslimka ah wuxuu xeelinayaa diintiisa ayaa ka reebaysa dulmiga ma ahe haddana qaraabanimada iyo waxaa weeye luxmadeeda ama dhalashada iyo xiriirkeeda waxaa weeye in u danqada laga yaabo ayaga waad aragtay ilal-yowm kuwa xataa caalamka hormaray isma xiriirinayaan hooyadii aabiya dhashay baa laga yaabaa markay ka kaaftoomaan sida xayawaanaadka qaarkood sida dameerka ilmihiisa inay tuuraan banaanka ka maraan waa min baabil awlaa waxaa la yidhahda qaraabanimo ama faamilinimo waxa la dhaha markaba ay ka baabaa alla wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala ilan qaraabanimo ama ilan alla subxaanahu watacaala walaa dimatan ballan la galay wa ulaa-ika kuwaas hum ayaga keliyata almuctaduuna kuwa xuduuda gudbay ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u wanaajiyey oo dhan bay ka tilaabeen iimaankii islaamnimada ma ogola anshax iyo wanaagii akhlaaqda ma ogola ardaalnimo oo dhan bay ku tilmaaman yihiin laakiin fa in taabuu hadday ka laabtaan oo towxiidka ay la yimaadaan wa aqaamuu salaata salaadana ay toosiyaan wa aatuu zakaata zakadana ay bixiyaan fa ikhwaanukum waa walaalihiin oo xaggay walaala idinkugu yihiin fi diini xagga diinta nasabka maaha wanufasilu waan kala dhigdhigaynaa al-aayaati calaa aayadaha liqowmin dad daraadeed qowmkaasoo yaclamuuna wax garanayaan halkan alle wuxuu noogu tilmaamayaa isugeyn aayadaha markii laisugeeya kuwii wanaag ku sugnaa haba yaraadee in wax loo baaqi yeelay oo ayagoo wanaagi ku baaqa inaanan looga hoos marin qadiica oo taa islaamnimada samaaxadeeday diidaysaa laakiin ayay laftoodiiba shardigaasaa lagu xiray intay ku toosan yihiin ballamadii shalay ay galeen adinka ilaaliya mar allaala markay ka baxaana way imaani doontaa fambid ilayhim calaa sawa-in xataa tuhma hadday soo baxda wa imaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawa marka lama ogola waxyaabaha aan la ogoleen waxaa ka mid ah in loo bilaabo edabdarre iyo dhaqan xumo iyo ballankabax iyo ardaalimo haddii wax loo diidayana meel cad baa loogu diidaya oo nabiga waan arki doonaa fatxu maka siduu alle noo tilmaamay siirada iyo xadiidkana ku cad iyo taariikhdaba heshiiska ay la galeen suuratulfatxi waa ku soo marnay ayagaa ka baxay mar laala markay ka baxeen inay caqli isticmaalaan iyo qaraabanimo iyo siyaasad ayay damceen tii ayaeedu waa laga diiday muddada iyadoo la gaarin baa wixii ay sameeyeen arrinna ay sameeyeen awgeed baa ballantii waxaa weeye looga baxay ayaga ay ka baxeen khalaas waana lagu duleeyo sidaasay magaaladooda gacantooda kaga baxday wain istajaaraka haddii uu kaa magangeliyo dalba axadun qof oo min almushrikiina gaalada ka mid a fa ajirhu badbaadi waxyaabaha ammaangelinta la yidhaahda ilal-yowm dhaqankii baa leh diintii baa leh siyaasadda guud ahaneed dowladaha ay sameeyaan baa leh waxyaabaha mutacaarafka caleyhi waxaa ka mid ah waxyaabaha guud ahaneed dadka ay wadaagaan in la ilaaliyo dhaqamada xitaa bay ka mid tahay in dadka markay ay isdagaalayaan qabaa-isha khaaska xataa intaan la gaarin gobolle ama dowlada dadka nabadoonada wadooyinka hay inta badan waa laga leexdaa waa arrin mujarab oo macruuf si kastoo ay dhibaatada u daba dheeraata nabadoonka socda iyo wixii lamid ah inta badan taariikhi dunya markii la fiiriyay waa masale mutacaarafa xataa qabla alislaam ay jiri jirtay wixii wanaagsanaa iyo bani aadamka wanaagsadeen maslaxo khayr ahna ay ku jirta haba yaraatee wax badan oo ka mid a daliil baa ku soo aroor sidaa daraaddeed arkaysa ayaga laftoodii baa saa loo kala qaadaya oo la isku qabanin alla wuxuu leeyahay xataa yasmaca ilaa uu ka maqla kalaamallaahi hadalka alle uma abliqu gaarsii markuu maqlay kadib ma'mana uu makaano badbaadidiisa gobolkiisa iyo meesha ugu dhowo waxaa weeye la geyni kara daalika kaas arrinkaasi biannahum ayaga ahashadooda qowm dad ay ahaadeen baa loo yeelay qowmkaasoo laa yaclamuuna waxba aan ogeyn kayfa sideeba yakuunu ugu ahaada lilmushrikiina gaalada cahdun balan cinda allaahi eebaweyne agtii wa cinda rasuulihi rasuulka agtiisa ila aladiina kuwa mooyaane oo ayagaba haddii ku kaaftoomeen gaalnimadooda waa min baabil awlaa dadka ahlu iimaanka iyo muslimiintana diintooda inay ku kaaftoomaan maxaa yeele tusaale xun ma laha ayaga alla wuxuu leeyahay ila aladiina kuwa mooyaane caahadtum aad la ballanteen cinda almasjidi masjidka agtiisa alxaraami qiimaha badnaa fama staqaamuu intay toosan yihiin lakum adinka oo ballamay ilaalinayaan fastaqiimuu lahum ayaga u toosnaada in allaha eebaweyne yuxibu wuxuu jecelyahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa kayfa sideeba ugu ahaadaa ballan
وإن يظهروا هديبة أتكادان أي غالب نقدان عليكم كركينا لا يرقبوا إذنكو إلى ما ينفيكم أذنك الإحدين إلا قرابنما ولا ذمة بلا لقلي ويدب ذهن وأنا فرصد وحي سومرنا حمان بيقو فإذا معايا لي وحي أفك الشيغان يرضونكم وحي كرار قرنين بأفواههم أفكار وتأبى وحديد إيسا ونقين إيسا دأتهن سورة ينبضن بي هواي الشيغ دونتا سورة كلنا ويكو إيماني دونتا وحي أفك الشيغان إني بينتها وأكثروا من توضبضنا فاسقون وفلاقا عن دين أدب لهم اشتروا حيبي إبسدين بآيات الله آياتك على ثمنا قليلا أدوين يربيكو إبسدين ودينت إله قيمة للملي فصدوا ويكأودين غير كون عن سبيله على ودديس دادك ويؤدقايا سبب إيوحاوية مباشر لبضب إنه السبب النقدان واللقيابا توسع عدنا يوديدان واللقيابا إنهم يقسى وحاهم هذا ما وحي كانوا أهي يعملون كواسميه لا يرقبون إلى للمايان في مؤمن غفل الرمي أرنكي إلا قرابنما ولا ذمة بلا وأولئك كوا هم أيك لي المعتدون كوا حد قد بيئة فإن تابوا هدي أي توبة كنا وأقاموا الصلاة صلاة أي توسيان وآتوا الزكاة زكاة أي بحيان فإخوانكم وولالهم في الدين حق دينك ونفصل الآيات آيات كان كلبنا لقوم ضد القوم كاسوا يعلمون وحقرنا أيام وعلم له محيّل إيمانك من أسباب المعرفة إنه كمدهين وأركيس الجهل لنا وحال الحريري قال لماذا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وإن نكثوا هدي أي بريان وأصابك كلين ووادنك وكبحثا قال ذي بلمه لو قبحي أما أي كبحين إنسا لقانا هدي أي وبلمه ولي أن حاوي لقبحين وكوح لو صور بلفتوذ هذه دغالي أفهم بالله كور أسيد هذا يسمعنا يا دينتي إلهي بيعينا يا رسولك بيعينا يا مقدساتك بيعينا يا حد قد بي بالله وإنك ذوادي إبريان إيمانهم بلمذوذ من بعد عهده مركز أذنك لبلنتين كذب ووضعنوا أي دران أما أي حد قدبان يفرق لهم في دينكم أرنكين فقاتلوا لدغالم أئمة الكفر قال ذا مدحدوذ meesha waxaa laga soo reebayaa wixii dawil ihtiyaajadka caruur lama dilaayo haween sida oo kale waayeelka sida oo kale kuwa culimada ama baadiriyaasha la dhahay waqtigan meelaha sameeyay cibaadada meesha iska waxa way cibaadeysanayeen kuwa loo dhawaanayo sadaradeed marka lama ogol aymatul kufri wa kuwa gaashan qaadka oo dagaalka abaabulay kuwa kale laba harimood ay ku dhiman karaan inama loo qastin وبيات وحلا دهاجرة هبيني ما بلغ الرأم جنتال لو قلت بقى مقالة وكل عين تاس إذا واحد أول دقلها إلا قصد السال لكن لما أقول مسألة لما هذه دقال كسوق قالان وإذا أحقلان وبيلك لفتي سعيدا كوحاوي هاي تا إذا المقاتل حقوق كيسا لها ليشين أنتوا دونا وها تمر كنا واسدة لمد أي نقنا يمركي تدك أي وحاوي هرب وذاين سيد المشركين تانا ويقسمين جرين عليه الصلاة والسلام أسأل أهان مركا وأقاشان قاتك إنهم كواس لا أيمان وحاوية بلمي لهم أيغو مسونان وبلغوا بالليال وحلق قبنا أيمان ما أنت هذه أفلقات وذان برسو سبين حران لقي لمايا قراءة كلام حقوسو أرورتي ابن عامر وقراءة أهل الشام إنهم لا إيمان لهم إيمان الآخرين ووحى دين لهن الله وحوك قرنين لعلهم مناشد وذا مركي وحي أي سمايين عقاب كذا لمريين تهون إني كرب تومان وحمد يعني لقن حمد أي سمايين أي دين تشيء أي وحك شيئين أما المسلمين تأي درايين نركوا ردعي أما وحوية عنان أي وحوية وحك الريبي الله وحولي ألا تقاتلون مياذا لدغالمين وتعريض قوما ددنا كثوبريا إيمانهم بلمذودي أيمانهم بلمذودي ووهموا هدنا يسكضيين بإخراج الرسول كسارديسة سورة القتال غير كذا قصومر وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وهم أيقوا هدنا مرسدحات بدأوكم إذين بالله بتقالك أول مرة حل لدغالم كي أهري بدر بيهي أو ليشي
ayaga ay rabeen inay ciidankooda maxaan ku yidhahdaa badeecadooda kusoo badbaadiyaan dadkii safarta ah baa qaarkood sida Abu Jahl oo kale waxay bilaabeen inay dhahaan anaga waxaasi wax weyn oo ma aha inaan nimankaasi la dagaalana oo waxa la wixii awoodda aan isugu geyno oo waliba dagaalka kadib dhowr maalmood aan meesha fadhino carab oo dhan ay naga haybaysat oo hadda wadkood galay bay noqdeen alla wuxuu leeyahay takhshawnahum ka baqaysaan mu'miniin fallahu alla ayaa xaqu garnimo badan an takhshawu inaad ka baqdaan in kuntum hadii aatihiin mu'miniina kuwa alla rumeeyey qaatiluhum la dagaalama yucadibhum allahu ilaa bacadaabaya biaydiikum gacmihiina khiyaarka baa laga qaadaya adinkaa lidin hiilinaya wayukhzihim alla ayaa dulaynayo awoodda iyo tayada isbideen garabkoodu ka baxaya wayansurkum calayhim isagaa inkugu hiilinaya korkooda oo ayaga garabkooda laga bixi wayashfi alla wuxuu caafimaadin suduura qowmin dad laabayaalkood mu'miniina alla rumeeyey waqti hore bay dadka dhibi jireen 22 sano ay ayadda gadaasheeda soo degtay islaamnimadii wayudhib alla wuxuu tagsiinayaa qayda quluubihim kuwa ayagoo mu'miniinta carada iyo ciilka ku gaamura qalbigooda waa mar labaad mar saddexaad markay ka helaan farxadii baa qalbigooda buuxinaysa meeshay cara iyo ciilka buuxin wayatuubu allahu alla wuxuu ka toobad aqbalaya calaa man cid kolka yeeshaa uu doono ayaga laftooda gaalnimo uma wada qarno raggii soo islaamay Abu Sufyaan baa ka mid ahaa Abu Sufyaan dagaalo fara badan buu sabab u noqday Uhud baa ka mid ahaa dhib badan buu geystay markii dambena isagoo muslim buu geeriyooday min kibaar saxaaba radiyallahu anhum buu ka mid noqday wallahu alana alimu alla waa qoon badan wax kasta waa doomadiisa axwaashooda xakiiman waa alla maamul wanaagsan oo wax kasta meeshii loo baahnaa mariyay alla wuxuu leeyahay wa innaka hadii ay buriyaan aymaanahum balamadooda min bacdi cahdihim markii aad la ballanteen kadib oo iyaga ballanti qaadeen wadacaluu haddii ay fargeliyaan ama ay duraan fii diinikum diinkiina faqaatiluu la dagaalama a'immata alkufri kuwa madaxda gaalnimada u ah waxa weeye la dagaalama jamcu imaam waa kuwa madaxda ama gaashanqaadka wax la dhaha innahum ayaga laa iimaana iimaan lahum ayaga uma sugnaanin lahum ayaga laa aymaana dhaaryaala uma sugnaanin lahum ayaga ama laa iimaana iimaan uma sugnaanin haddii hamsada loo hoos dhigay lacallahu munaashadooda waxaa la leeyahay iska dhiciye waxaa loo leeyahay waa lacallahu munaashadooda yintahuna inay ka reebtoomaan alaa tuqaatiluuna miyaadan la dagaalamayna qowman dad nakasuu buriyay iimaanahum balamadooda wahamnu hamiyey oo isku dayay wax walbana ku bixiyay biikhraaji rasuuli suubanaha in laga saaro waxaa maka almukarama wahum ayagoo bada-uukum haddana idin bilaaba awala maratin dagaal kii ugu horreeyey badar ayaga ayaa gacanqaadka sabab u noqday in lala dagaalamo atakhshawnahum ma ka cabsoonaysaan fallaahu alle ayaa axaqu u xaqnimo badan an takhshawuu inaad ka baqdaan in kuntum haddii aatiin mu'miniina kuwa alla rumeeyey qaatiluhum alle wuxuu leeyahay la dagaalama yucadibhum allahu alla ayaa cadaabi doona biaydiikum gacmihiina lagu cadaabi wayukhzihim alla waa mid hoojin doona oo garabkooda ayaa laga bixi wayansurhum calayhim isagaa idinku hiilin doona adinka ayaa nasriga la siinayaa innaa lanansuru rasuulanaa waaladiina aamanuu innahum lahum lmansuuruuna wa ina jundana lahum lgaalibuun wayashfi alla wuxuu caafimaadin doonaa suduura qowmi dad labayaalkood mu'miniina alla rumeeyey wayudhib alla wuu tagsiinayaa qayda quluubihim qalbiyaalkooda caradeed oo ilaahay subxaanahu watacaala nasrigaasuu ku farax gelin wayatuubu allahu alla uu ka toobad aqbalaya calaa man yashaau ciduu doono gaaladaa ka mid ahna ilaahay baa toobad siinaya wallahu alan caliimu alla u aqoon badan wax kasta xakiimu waa alla maamulay murti wanaagsan am xasibtum an tatrukuu mu'miniintii baa lala hadlayaa alla wuxuu leeyahay dadkan waxa intaa loo marinayo waa in la kala saara akhyaar iyo ardaal baa la kala saaraya am xasibtum waxaad u malayseen an tutrakuu in la iska kiindaayinaya walamaa yaclam illaahu ilaah isagoon muujinin aladiina kuwa jaahaduu dagaalamuu minkum adinka mu'miniinta ka mid ah oo walam yattakhiduu aanan yeelanin min duunillaahi alla sokadiisa iyo walaa rasuulihi rasuulkiisa sokadiisa iyo walalmu'miniina mu'miniinta waliijatan waday hoosaad qof hoos waxa weeye oo kala xiriira
arrimihiisana uu in badan u bandhiga lana waxaweeye kooda oo waxaweeye sirtiisa u sheegto. wallaahu alla khabiirun waa alla u aqoon badan bimaa waxay tacmaluuna samaynaysaan. ayadda marka takaaliifta waxa ay soo saaraysaa ama masaa'ibta bani aadamka diintooday kala saaraysaa. kii gaalka ahay gaalnimadiisu caddaysanaya, munaafiqnimadiisaa soo baxa, ninkii mu'minka ahayna ilaa iimaankiisa ayaa soo baxay. am xasibtum qur-aanka meelo badan bay ku soo aroortay axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa ayaa soo maray. am xasibtum an tadkhuluu ljannata way imaani doontaa fi suurati aali cimraan. am xasibtum an tadkhuluu ljannata suuratu albaqara ay ku imaani doontaa. wazulziluu xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasru llah alaa ina nasra allahi qariib. an tutrakuu in la iska kiintagaayo o laiska daynayo, aamanaa keli lagu daynayo miyaad u malayseen? walamaa yaclam illaahu ilaah isagoon ogaanin ama aan muujinin waa daahirin alladiina kuwa jaahaduu dagaalamo minkum adinka in ka mid ah oo walam yattakhiduu aan yeelanin min duunillahi alla sukadiisa walaa rasuulihi rasuulkiisa walilmu'miniina mu'miniinta waliijatan aan ka yeelanin waday hoosaad. wallaahu alla khabiirun waa alla u aqoon badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan. maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu dhaqamadoodii waxa ay samaynayeen buu alla u tilmaamayaa ama uu noo caddaynayaa wax badan oo daahirka wanaag ah, xaqiiqadooda ilaah agtiisa inay wanaag ahayn. maa kaana uma ahanin jid ama gar uma le lilmushrikiina gaalada an yacmuruu inay camiraan masjid allaahi ama masaajid allaahi guryaha alleh, shaahidiina ayagoo qaraya calaa anfusihim naftooda korkooda bilkufri gaalnimo. ulaa'ika waxaase xabadad waxaa hoobatay acmaaluhum acmaashooda, wa fi nnaari naar gudaheeda ayay hum ayaga yihiin keliyata khaaliduuna kuwa ku waara. marka qofka ayagoo gaalnimo sheeganayo nabigii alle diinta saxaabada intaba la dagaalamaya guriga ilaahay inay ku baaqi noqdaan suurtagal ma ah. waxa ay ka samaynayeen oo khayrka oo wanaagga oo qaarkood la tilmaami doonana waxa ayaga ay meel ku gaarayaan ma aha. inamaa in kalama yacmuru waxaa camire masaajid allaahi aqalada eeba ama masjid allaahi guriga alleh man qof aamana billaahi alla rumeeyey walyowma maalinkii alaakhiri dambeeyey wa aqaama asalaata salaada toosiyey waa camalkii saddexaad, wa aata zakaata zakada bixiyey waa isla socdaan. walam yaksha aanan ka baqin ila allah alla mooyaane, xaqa aan ugu leexanin cid daraaddeed iyo weynaynteed iyo taxgilinteed ama ka baqideed. facasaa waxay mudan yihiin ulaa'ika kuwaas an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa la hanuuniyey oo ilaahay hanuuniyey. afartaa tilmaamood ciddi laga helay inay yihiin dad hanuunsan oo muhtadiin ah ayay mudan yihiin. alla wuxuu leeyay maa kaana uma ahaanin oo jid uma ah lilmushrikiina gaalada an yacmuruu inay camiraan masjid allaahi ama masaajid allaahi guryaha alleh, shaahidiina ayagoo waxaa weeye qiraya calaa anfusihim naftooda korkeeda bilkufri. ma arkaysaa bilqowli bay maanta ku qiranayaan oo markii qofka la weydiiyey way sheeganayaan daahirkooda qof walba diintiisa waxa ay tahay. ulaa'ika kuwaasi xabadad way hoobatay acmaaluhum acmaashooda. acmaashaana meelo badan baa ku soo marray. waxa hoobanaya waa camalkii saalixa ay samayn jireen. kasaraabin biqiicati yaxsibuhu damaanu maa-an karamadin ishtadad bihi riixu fii yowmin caasifin. aayado badan baa ku soo marnay. alla wuxuu leeyahay subxaanah wa fi naari naar gudaheeda hum ayaga keliyata khaaliduuna ku waarayaan. waa xasri. inamaa in kalama yacmuru waxaa camira masjid allaahi ama masaajid allaahi guryaha alleh kow man aamana billaahi alla qof rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamo ama aakhiradana rumeeyey. saddex wa aqaamu salaata salaada toosiyey. afar wa aata zakaata zakadana gutay oo bixiyey. walam yaksha shan aan ka baqin ila allaha alla mooyaane. meelo badan baa ku soo maray marka ilaahay keliya oo laga baqa. waman yudic illaaha warasuulahu wayaksha allaha wayattaqiihi fa ulaa'ika ilaa aakhiri laaya. waxyaabaha marka la ammaanaya mu'miniinta lagu ammaanaya ka mid tahay ashidaau cala alkufayri ruxamaau baynahum. facasaa waxay mudan yihiin ulaa'ika kuwa an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa la hanuuniyey xaggooda, kuwa jumladoodii ka mid ah min asaalixiina min almuhtadiina. markii la leeyahay tilmaamahaasi la sheegay shaksi lama sheegin, qof allaala qofka ilaahay waafajiya ku tilmaama ayaa muhtadiinta ah. alla wuxuu leeyahay ajcaltum
gaaladii waxay marka isku ammaani jireen guriga ilaahay annagaa dhaqaalayna, annagaa u khidmayna xaajiyaasha, annaga ayaa waxaa weeye u taagan oo waardiye iyo waxaa weeye ka ilaala. markaas qolo waxaa la yidhaha sadana, qolana suqaat ayaa la yidhaha waraabinayeen xaajiyaasha ceelka zamzamka ayay kor taagan yihiin oo dadka xaajiyaasha u dhaaminayeen biyaha. qolana waxay ka shaqaynayeen gurigaas albaabkiisa ay hayaan ilal yoome. kacbada aarata furaheeda dad baa haaya, dadoo dhan looma dhiiba, shaksi min xaysu aljumla ka mid a dadkaas ayaa furahaaya. marada markii laga qaadaya kacbada mar baa la qaawinaya. habeenka tobanaadka ay tahay masaajidka cishaa markii la tukadaa la xiray, bisha carafa 10keeda habeenkaas marada laga bedela. waa darbi caadi dad gogalgarayso ark, dad khaas ayaa dhaqaaya, gudaheeda la nadiifinaya, wax baa la marinaya. maradaas markii laga dejiyo maradaas kala la saaraya. marada markii la saaro beri maadaama ay tahay maalinta tobanaadka, marada waa la rafcinaya kor. qofka uu dheer meeluusan gacan la gaarayn baa inta la duduuba kor. waxay leedahay sidii teendhooyinka kale meelo xirga oo lagu xiray, meeshaasaa kor loo qaaday. marka derbigan si aan loo fuulin marada, ayadoo saasay dadka qaar fulfuulayaan si ay isu riixayaan. alxaasil marka meeshii noocaasoo saa u ilaalinayeen waa camal wanaagsan. suuratulbaqarana way kusoo laabani doontaa. camalkaas wanaagsan waxay burin lahaa bay iyaga laazimeen, si agtooda qiimo kuma leh. alla wuxuu leeyahay ajcaltum mushrikiin waxaad ka yeesheen siqaayat alxaaji. qiro kale waxaa ku soo aroortay suqaat alxaaji wa cimaarata meesha ana wa camarata almasjid alxaraam. macnihii wuxuu noqonayaa adeegtadii xaramka iyo dadkii maxaan ku yidhahdaa fadhiyey oo ilaahay baryayay. gaala ayagooba ah inay ilaahay baryayna xajinayna cumraysanayeen aan soo mar. kaman miyaa lama tahay baad u malaysaa aamana billaahi alla rumeeyey walyowmi maalinkii alla aakhire dambeeyey, 3 wajaahada ku dagaalama fii sabiilillaah alla diintiisa koryeelideeda wadadeeda ku dagaalama. laa yastawuuna cinda allaahi, kuwa alla agtiisa kuma siina. kan camalkiisa maxaa loo buriyey iimaan la-aanta. nabiga waa la weydiiyey nin deeqsi ahaa, geesi ahaa, xasab iyo nasab u dhashay oo dadkii ugu deeqsasanaa fi taariikhi alcarab, cabdalla bni judcaan la dhihi jir. umana caaisha weydiisay ninkaas suubana ka waran waxaasoo taariikha carab dhexdeed ku leh. waa ilaahay isugu daray dhaqaalanimo iyo dhaqaale oo wax la ahaasha iyo deeqsanimo. bani aadamka looma jamcin. dad badan baa dhaqaalay wax la siinaya, isaga ilmihiisii iska daa isagoo ka baahan buu gaajo u dhimanaya. u badantay magaaladana laga helaya dad ilmahooda marka aragta ama xoolo ay leeyihiin, ninka anaa hebel waxaan le haddii lagu dhaan la yaabaysa. saa daraaddeed marka nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maya waxa u tari maysa ilaa agtiisa. wuxuu ku celeeyey maxaa yeelay weligii ma dhihin rabbi iqfir lii khadii'atii yowma ddiini, ilaahu dembigayga dhaaf hal maalin ma dhihin. fan iyo kibir iyo dadnimo waxyaabaha hadda gaalada ay bixinaan soo maara. intaasoo trilyan xoolo ay bixinayaan, waxay ku bixinayaan bani aadanimo, islaamnimo kuma bixinayaan. waxay leedahay humanity ay ku bixinayaan, laakiin islaamnimo ha sheegi. waxaa marka kasaraabin biqaacatihim yaxsibuhu dham'aanu maa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin walaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan. alla wuxuu leey wallahu ebo in la yahdi ma hanuuni alqowma dad adaalimiina gardarsaday, gaalo maxdi ah, gaalimadoodana ku kaaftoontaan hanuun dan ka lahayn. tilmaamihii aan soo dhaafin in laga waayo hanuunkooda alla dan kama leh, laakiin ilaahay yuu hanuuninayaa. aladiina akhyaarta aamanuu alla rumeeyey wahaajaruu wadankoodii iyo dadkoodii iyo dunyadooda ugu tagay alla dartii, wajaahaduu dagaalamay fii sabiilillaah alla diintiisa koryeelideeda dhexdeeda ku dagaalamay, biamwaalihim xoolahoodii wa anfusihim naftoodana bixiyey. ulaa'ika kuwaas acdamu darajatan garaadada iyo darajada weyni badan cinda allaahi eebbaweyne agtiisa. wa ulaa'ika kuwaas hum ayaga keliyata waa xasri alfaa'izuuna kuwa liibaanay ah. oo maxay leeyihiin bishayin min atafsiili, wax un falanqayn ka mid ah haddii la yidhaahdo yubashiruhum rabbuhum, alla ayaa u bishaaraynaya biraxmati naxariis oo minhu alla xaggiisa ka ahaatay. markay malaa'igta kusoo degaysay nafta ka baxaysa waan soo marnay tatanazzalu calayhim almalaa'ika, laba wa ridwaanan raalli ahaasha. suuradday ku imaani doontaa wa ridwaanu min allaahi akbaru. wax la siiya bani aadamka jannada ayaa darajada koobaad noqonaysa oo u hooseysa. darajada labaad waxaa imaanaya waxaa loo yaqaana
raalli ahaashada alle. waxa saddexaad labadooda ka sii qiimo badan aragtida alle subxaanahu wa tacaala. sidaas ay marka u kala sareeyaan. waxa u sareeya oo inay alle arkaan ahlu jannada, in la arki doonana ayada badan baa ku soo maray. liladiina axsanu alxusna wa ziyaada baa ka mid ahayd. lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna masiidun baa ka mid ahayd. tacrifu fii wujuuhihim nadrata annaciimi baa ka mid ahayd. wa wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadiratun baa ka mid ahayd. ayada badan baa ku soo marno loo daliishaday. alla wuxuu leeyahay wajannaatin beerayaala. saddexdii waa la isdabageliyay. arag baa u sugnaaday lahum ayaga fiihaa jannada gudaheeda waxay ku leeyahay naciimun barwaaqa muqiimun joogto ah oo weligeedii allahood aan isbedelayn. suuratlkahfi aakhirkeedana waxaa ku soo maray ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaati kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nuzula khaalidiina fiiha laa yabquuna canha xiwalan. khaalidiina way waari doonaan fiiha jannada gudaheeda abadan weligoodii allahood. in allaha ibaweynin cindahu agtiisa alla waxaa ahaatay ajrun abaalmar cadiim u weynin badan. halkaa marka waxaad ka garan wixii allihii weynaa waaxidkaa wax weyn ku tilmaam wax weyninayihiin. caqliga bani aadamka markii la dhaha waxa ilmaha tusaale ahaan haddii lagu tusaaleey waxa qofka weyn uu siinayo qof weyn iyo waxa ilmaha la siinayo way kala duwan yihiin. allihii weynaa waaxidka ah walahu lmathalu laclaa wuxuu weynin ku tilmaamay wax la qiyaasi karama. xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam aad ka dareemaysaa wasfiga ama tilmaamaha qaarkooda laga bixiyay markaa aris jannada sida aayadda suuratu sajda ku soo marnay. uu leeyahay alla falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyunin. alla wuxuu leeyahay jacaltum gaalama waxaad ka yeesheen siqaayat alxaaji xaajiyaal waraabintoodii wa cimaarat almasjidi masjidka camiritaankiisa. tacmiiru lmasaajid waxaa ka mid a nadaafada masaajid in waxaa weeye magooshiisa la ilaaliyo, darbigiisa la ilaaliyo, korontadiisa hadday halawda wax la saara. tacmiirka ayay ka mid tahay. waxaa ka mid a salaada in lagu tukado, duruusta in lagu aqriyo. tacmiirka marka kan baahan oo miskiinka oo kusoo ordaya wax laga taarto. tacmiirka marka waa ismi caam ah. waxaasoo dhan baa soo gudagelaya. waardiye loo sameeyo oo laga ilaaliyo xayawaanaadka iyo waxyaabaha ku ciyaari lahaa, xasharaadka iyo wixii lamid a laga ilaaliya. tacmiirka marka waa ismi caama. alla wuxuu leeyahay subxaanah kaman in mid lamid a miyaad u malayseen aamana rumeeyey billahi alla walyowma maalinkai alaakhiri dambeeyey wajaahada ku dagaalama fii sabiilillahi ilaa diintiisa koryeelideeda. laa yastawuuna sinmi maayaan kuwa cinda allahi alla agtiisa. jin ma ah. waan soo marnay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina. وفي سورة سعد وحق سمر أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله وحولي والله ألا يهدي مهنوني القوم ضد الظالمين قردر سدي وكفار محضقها مشركين الذين أخيربوا ألا هنوننا يا سبحانه درجة شرف نبوت لقل آمنوا ألا رمي وهاجروا هجروا وجاهدوا في سبيل الله ألا ودديس قده هذا قد قالما بأموالهم حولوذي وأنفسهم. tartiibkan qur-aanka meelo badan baa kusoo maray wana imaan doona. hantida maxaa loo hormariyey? bani aadamka waxbixinta si guud ahaaneed way ku adagta ha yaraata ha badnaa. sidaa daraaddeed baa nafti iyo la hormariyey maalkii baa lasoo hormariyey. sida kale markii loo fiiriyana baahida xaajka iyo jihaadka iyo meelo faraba markii la marayo xoolaha ayaa lambar u noqonaya. acdamu kuwaasa weyni badan darajatan xagga darajada cinda allahi alla agtii wa ulaaika kuwa hum ayaga keliyata alfaa-isuuna kuwa dhuroobay ah ama kuwa liibaanay. yubashiruhum wuxuu ugu bishaarayaa rabbahum rabbigooda biraxmatin naxariis oo minhu xaggiisa alla ka ahaatay waridwaanin raalli ahaasho uu ka raali yahay. wajannaatin beerayaala lahum ayaga u sugnaaday fiihaa jannada gudaheeda naciimun barwaaqo bay ku leeyihiin. naciimkaasoo muqiimun waxaa weeye daa'ima weliga isbedelayn. khaalidiina fiihaa jannada gudaheeday ku waarayaan abadan weligoodii allahood. in allaha ibaweyne cindahu agtiisa waxaa ahaatay ajrun abaalmar cadiima weynin badan. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum. ayadan waxay tilmaamaysaa bani aadamka ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa waxyaabo ku ciriirini kara oo si abiica ah laakiin inuu baraaruga la doonaaye. qaala tacaala yaa ayuha aladiina akhyaarta aamanuu alla rumeeyo walaa tattakhiduu ha ka yeelina aabaa'akum aabayaalkiina wa ikhwaanakum walaalihiin awliyaaa kuwa kalgacalayaal ah ama xigto ah
شرط لكن أيضا وحي ديديسو معها قرابة حريرين تيدي حقيدي معها إن استحبوا هذه دورتان الكفر قال لما على الإيمان ولا بدو ولد من صبرني فلا تضيعهما هذه قال لما كويا وركود هيلن وصاحبهما في الدنيا معروفا المعذر يقرابه من باب الأولى ومن يتولهم غفك كولي يشو منكم أذنكم مؤمنين إذن كمده وقال لما ورفع دد كي جوا فأولئك كواس هم أي كليا الظالمون كوا قردر سدي حصر جمر كوا قال لما حياوها مركا الاسكور رعا يا حمانتا قف كحاوية هلا ينا أين جيرين وحكلية الاسكور ضاع هي وحاوية رعا ينا أيتها قراون هل استعين لهذا يدفع قرن كرتا الله وحوله يقول حاتر هذا صوبا إن كان آباؤكم سدد أرمد والإسدواء قليه سدد وحكسه رجل الله رسول كيسي دين تيس انت أسأيال إسبربر لغي سدد أنهم ويلا الله رسول كيسي دين تيس قل حاتر هذا صوبا إن كان آباؤكم أبي الفين هدئوية وأبناؤكم ولشين أذنك هذا شيء وإخوانكم ولا لهن إذا لدى شيء إيو أزواجكم حاسسكيني وعشيراتكم مفرد جمع لغة وصهرت وعشيراتكم كارهني وأموال حول اقترفتموها أتشغيستين وتجارة كنعسي تخشون أتكبغيسان كسادها بارد دي أما سرجب دي ومساكين قرية ومدة تضاب سديدات قريها سو ترضونها أتكراليتين سفع عن ذو جعيشهن أحب مثل جعيل بديه إليكم حقين من الله عليه والرسول كيسي وجهاد دقالمت في سبيله لو دقالم ساهدي نتيجة نغطو سديدة أين لغيمة بنات فتربصوا سوى حتى يأتي الله إله إنه كلا إمادة بأمره أمر كيسي وحكما يا فالله على لا يهدي مهنوني القوم ذات الفاسقين وحاوية diinta ama daacada alla ka baxay fisqiga markuu mucarraf yahay meel badan oo ku soo marnay waa gaalnimada iimaankii baa la diiday gaalnimadaas lagu daadanay saadaradeed marka sideedaas waxyaabaha sawaarifta inay ka mid tahay oo qofka ilmihiisa ama adduunyadiisa ama ehelkiisa intaba inay dafayaan way sugan tahay ilmaha akala waxaa sugan nabi calayhi salaatu wasalaam alwaladu majbanatun wa mabkhala saasoo ku tilmaamay carruurta aad dhashay mararka qaar bakhaylnimay sabab kugu noqdaan fulaynimana sabab ay kugu noqdaan inaad dahay war ilmo yaraan korina waxaan ka yaabaa jiilaana lagu jiraa qaar baa sakadii waajibkaasaa u diiday bal insha allahu tacaala markuu cer dhaca xoolaha lagu bixinaa sakadii jiilaalka allah nagu soo baxay xoolihii meeshay ku tagay maasta allama lagu leey mise laguma waa lagu leey kama fakanayo aakhira in lagu cadaabi doonana way sugantahay suuradda lafteeda ka hadlayna marka jubniga ama bakhaylnimada nabiga ilaahay buu ka magangeli jiray wal jubni wal bukhli fulaynimo xaq aan arkaayo cilmin u leeyahay awoodna aan u leeyahay inaan sameeyo inaan kaga leexda taas ayaa marka laga hadlayo midda dabiiciga laga hadlayo yaa ayuha alladhiina qayrtu amanu alla rumeeyo laa tattakhiduu hayyalanina aaba'akum abayaalkiina ka yeelanina wa ikhwaanakum walaalihiin awliyaa kalgacalayaal شرط لكن إن استحبوا مركي لقينا يا مركي إيشان أما أي دورتان الكفر قال لما على الإيمان قال كسكت غرابوتهم قيمة ماله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بإيمان ذات الله وحوله ومن يتوله منكم قفك أذنك إن كمذا وكول لكتكواس إيمانك قال لما كدورتين فإنه إسقى فأولئك كوا هم أيها يا الظالمون كوا قردر سديان قلوا حتى لا رسولك سوبنوا إن كان آباؤكم أبي الكين هديئوا هذا وأبناؤكم ولشيني وإخوانكم ولاليهم وأزواجكم حاسسكيني وعشيرتكم كوا أذنك آد وذلتين عشيرة وتلك جود أهانت بالغ عبر ووحوها سي وأموال حول اقترفتموها أتشغيستين وتجارة بديعة تخشون أتكعب صونيسا كسادها وحوية نقصامدد أما باردد كساد كوامركي وحوليها أي نسخامان خاصة وحيابها بضيعتها لو استعمالها ومساكن قرية ترضونها أجعيشهن أحب من يجعل البدنية إلى الله إليكم أذنك حقين من الله ألا حقي لو يجعل البدنية ورسوله رسول كيسي وجهاد دقالم
في سبيله على وددي سلو دغالم فتربصوا سوء حتى يأتي الله إله إن تأوك لإيمانه بأمره أرنكيس فكما الله تلنايا كعنت إلهي سبحانه وتعالى بيقليان هذه إله نونه تلقلين ويهنونايا لكن والله كلا در المدور إيمان قفك هذا وحشنا وبدبادي بديل بو إلهي سينايا هذه وقال لما وحشنا وهوغي والله ألا لا يهدي مهنوني القوم ذات الفاسقين دين تألا كبح يضع عديس قوي والله سبحانه وتعالى